internetka waxa dhex yaala waa highlights waa inaha yar ee ugu xalada badan leh ugu quruxda badan leh ugu fiican ee qofku uu rabo inuu la wadaago dadka si guudna noloshu waa iska sida inta badan qofku intuu ku tusayay inta aad ka arkayso waa in yar oo kooban oo xula oo intii uu rabay inuu dadka tusaa laakiin behind the scenes ka waxaanad arkaynaa behind the scenes ka dhacaya ayaa dhab ahaan waxa runtii dadka lagu qiimeyn karo aduma arkaysid markaa behind the scenes ka wuxuu baad ku taasurto ku beer qaaday qof maaragtay safar baxay vacation jooga meel beach oo qurux badan sawir ku soo galay maaragtay experience ku safarka ka helay snapshots ka ugu qurux badan intuu ka soo qaaday internetka ku soo baahiyay kuwaasaad ku taasuraysa hebel wuu kala kacsan tahay heblaayo wuu kala kacsan tahay ma ogid laakiin maxaa ka dambeeya waxaad uun qiimeynaysaa aad wax yar aragtay marka waxaan isleeyahay waxyaabaha inuu qofku wax walba degdeg inuu iskaga helo iskaga damco waxa kamid ah qofku inuu ku taasuro iska raaco qalbigiisa raaciyo oo run moodo waxyaabaha internetka lagu baahiyo iyo dadku siday oo noloshooda u sheekayskaraayaan maaragtay isku soo bandhigaan that's not real waxa weliga aaminin qof kasta milix baa u qoyan qof kasta qabyo noloshiisa u dhex taala baa jirta qofna ma aragtid qabyada u taal qofna kuma tuso qabyada u taal because we live in a delusional world we live in a world that is so fake qof walba uu rabo inuu ku tuso inta yar u hagaagsan iyo inta yar u nool waxaad moodaysaa in cid kasto kala tagtay adiguna aad hadhan tahay waana waxyaabaha qofka ku sababa inuu wax weyn intuu iska damco inuu bari gaadho rabo oo hebel booti uu kala kacday sidan iyo sidan maalin iyo qofna adigu iskuma qiimeyn kartid qofna noloshiisa ma wada ogid inta yareed ka aragtay ma noqon karto qiyaas qofka aad ku qiyaasan karto taana waxba ka sii daro ka muhiimsan inaad qof noloshaada ku dheeririso ama isku qiyaastaa waa khaladaadka ugu waaweyneed ka gali karta naftaada adigu haddaad boojkii koobaad ee noloshaada maanta marayso in qof page-kii kontonaad maraya tusaale ahaan aad ku qiyaastaa wuxuun baad ka dhaxli niyad jab iyo isku buuq iyo maaragtay frustration baad ka dhaxli qofna qofka kale kuma qiyaasna qof progresska waxa la yiraahdo inuu qofku taayirka u dhaqaaqo waa personal waa qof walba progresskiisa iyo dhaqaaqiisa iyo jihadu u socdo waa wax extremely personal ma wax generic wax iska guud oo qof walba loo oran karo ma oo dadka la isku qiyaas karo ma qof walba dhaqaaqiisa iyo horu socodkiisa fursadihiisa iyo caqabadihiisa qorshihiisa iyo qabyadiisa wuxuu gaaray wuxuu ku fashilan yahay waxa ka dhimanayo wuxuu haysto qof walba way kala duwan tahay qof walba iskiis ku qiimeyn kara mooyaane qofna qof laguma dheerin karo waayo noloshu waa safar qof walba safar gooniye buu ku jiraa nolosha dhexdeeda qofna safarkiisa safarka qofka kale la mid ah